intii wanaagsan qiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tabin kale oo kamid ah barnaamijka Barrow Show oo ay taariikhdu tahay November 1 sanadka 2025 qodobo waaweyn oo xiiso leh ayaan idinkugu hayaa waxaa kamid ah nidaamka Israel gaar ahaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo qoyskiisa ayaa wajahaya fadeexad weyn oo uu soo saaray mid kamid ah saraakiisha ugu khibrada badan hay'adda sirdoonka ee Mossad loo yaqaano kadib markii la sheegay in lacaga fara badan uu ka qaatay dawladda Qatar taas oo lagu saameynayo siyaasadda gudaha ee Israel haddaba Qatar tallaabooyinka ay qaatay maxay uga dhigan tahay maxayse tahay sababta dooxa ay u bixinayso lacagta intaan la eg oo lagu soo warramayo in siyaasadda Israel ay haatan qalqalka ka dhaxabuurtay warbixin sirdoon oo xiiso leh ayaan idinkugu hayaa barnaamijka dawladda Turkiga waxay qaabishay wafdi sare oo ka socda dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Falastiiniyiinta ee Hamas kuwaasi oo magaalada Ankara shir kula leh wasaaradda amuraha dibadda waddanka uu hogaaminayo Hakan Fidan ujeedadu waxay tahay in xal laga gaaro dhibaatooyinka ka taagnaa magaalada Gaza isla markaana Turkiga uu ka qaato door tagan oo muhiim ah maadaama saaxiib suka uu leeyahay dawladda dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Hamas dhinaca kale marka la fiiriyo dawladda Iran waxa ay ka hadashay tallaabo dawladda Mareykanku ay sheegtay in Tehran ay hore u diiday oo ku saabsanaa in la gaarsiiyo fariin ku saabsan xagga wada hadalka iyo waliba labada dhinac inay isku soo dhawaadaan Tehran waxay ku tilmaantay tallaabooyinkaasi inay yihiin kuwa aan suuragal ahayn oo la qaadan karo dawladda Turkiga madaxweynaha hogaamiye Recep Tayyip Erdogan mar kale waxa uu dusha dhaleecayn uga tuuray nidaamka Israel waxana uu ku tilmaamay in aan la qaadan karin hanaanka ay iminka ula falgalayaan xabad joojinta ikhyaar ay qodobadaas ayaan ku faaqadayaa barnaamijka meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada idilkiinba ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyay nidaamka Israel ayaa haatan wajahaya dhaqdhaqaaq xoogan oo fadeexada uu la kulmayo ama uu la kulmay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu kadib markii sargaal sare oo muddo 30 sanadood ka shaqeynaya amniga Israel uu ku dhawaaqay in Benjamin Netanyahu lacaga siyaasadeed ka qaatay dawladda Qatar isla markaana dooxa haatan ay ku dhaxlaban tahay buu yiri siyaasadda iyo amniga nidaamka Israel taas oo qatar gelinaysa sida uu ku dooday sargaalkan jiritaanka nidaamkaasi hase haatee Netanyahu oo tallaabadan ka jawaabay ayaa waxa uu sheegay inuu aadi doono maxkamad maadaama sargaalkan sida aadka loo aaminsan yahay uu ku sameeyay sumcadil isaga iyo qoyskiisa waxana uu sheegay in loo baahan yahay laamaha garsoorka in si degdeg ah ay uga garnaqaan tani waxay noqotay xiisad cusub oo Israel ka dhax bilaabatay iyadoo Netanyahu hore u wajahayo culaysyo dibadda iyo gudaha ah halka maxkamadan ay hore uga furnaayeen sabab la xiriira musuqmaasuq wargeyska Ra'yul Yawm ayaa sheegay in mas'uul sare oo ka tirsan hay'adda sirdoonka Israel ee Mossad oo lagu magacaabo Dr. Audi Levy uu si adag u weeraray ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu isagoo ku eedeeyay in uu dhistay boqortooyo dhaqaale oo caalamiga lacagahaasi oo ay bixisay dawladda Qatar saameyn ku yeelanaya nidaamka dawladnimo ee Israel sida uu ku dooday Levy oo muddo 30 sano ka shaqeynaya hay'adaha amniga Israel sida sirdoonka militariga golaha amniga qaranka Mossad ayaa sidoo kale hay'ado kale ayaa sheegay in lacagaha Qatar ay si qarsoodi ah ugu soo gudbeen xubno ku dhow Netanyahu isla markaana ay heleen xogo aad xasaasi ah oo ku saabsan diiwaanka ra'iisul wasaaraha nidaamkaasi taas oo Qatar iminka ay gacanta ku hayso waxa uu sheegay in Qatar ay si xeel dheer ah u gashay gudaha maamulka Netanyahu iyadoo sheegtay in ay xiriir siyaasadeed iyo mid maaliyadeed bal leedahay taas oo suuragelisay in la helo xogo sir ah oo ay lahaayeen saraakiisha ugu sareeya ee xukuumadda Israel Levy wuxuu intaa ku daray in lacagtu ay reebtay raad xanuun badan taas oo ku tilmaamay halis weyn oo sababi karaysa in Netanyahu lagu cadaadiyo
ama in uu la galo heshiisyo khatar gelinaya amniga Israa'iil dowlado carbeed oo ay Qatar ka mid tahay. Ra'iisul Wasaare Netanyahu ayaa jawaab degdeg ah ka bixiyay eedaasi isagoo dacwad ku saabsan aflagaado iyo been abuur ka dhan ah Levy u gudbiya maxkamadda isagoo ku doodaya in hadalladaasi ay yihiin been abuur iyo dacayad siyaasadeed oo lagu waxyeeleynayo sumcadiisa iyo tan qoyskiisa. Si kastaba ha ahaatee Odi Levy ayaa difaac xooggan soo bandhigay isagoo sheegay in dacwadaasi ay tahay isku day lagu aamusinayo dadka hadlaya isla markaana ay tahay xaalad cabsi gelin ah oo lagu difaacayo Netanyahu iyo qoyskiisa. Ma jirto buu yiri sabab aan arintaasi uga baqayo. Levy waxa uu sidoo kale sheegay inuu hayo xog iyo marqaatiyo muujinaya in lacago badan oo ka timid Qatar lagu wareejiyo qoyska Netanyahu lana isticmaalay akoonno bangiyo shisheeye iyo waliba xisaabaad digital ah oo lagu iibsaday guryo iyo maalgashi caalami ah. Waxa uu ugu baaqay maxkamaddu inay baaritaan madax bannaan oo lagu hubinayo arintaasi ay sameeyaan halka ay ka yimaadeen lacagaha iyadoo la baarayo ololihii doorashada ay Netanyahu ee sanadihii 2012 iyo 2018. Levy waxa uu sheegay in hadalladiisu aysan ahayn tuhun ama ceebayn balse ay yihiin daliil sharci ah oo ku saabsan buu yiri sida loo maareeyay kiiska fadeexadda ee la baxay Qatar Gate kaas oo saameyn weyn ku haya siyaasadda Israa'iil sida uu ku doodayo sargaalkaasi. Waxaa xusid mudan in Levy uu ku tilmaamay tallaabada Netanyahu ee dacwadda dagaal siyaasadeed oo lagu difaacayo qoyskiisa iyo xisbiga Likud ee talada haya isagoo ku adkaystay inuu diyaar u yahay in maxkamadda la horkeeno cadeymo muujinaya xiriirka dhaqaale ee qarsoon ee Netanyahu iyo Qatar ka dhaxeeya sida uu dooda u dhigay. Wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xabad joojinta laga gaaray dagaalka magaalada Gaza ay tahay mid jilicsan Israa'iilna ay ku xadgudbayso dhowr jeer oo kala duwan. Waxa uu qeexay dowladda Turkigu inay haatan aad uga walaacayso tallaabooyinkan uu ku tilmaamay kuwa suuragal ah in aan la aqbali karin. wasiirka amuraha qaarajiga ee wadanka Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in heshiiska xabad joojinta ah ee ka dhaqan galay Gaza uu wali yahay mid aan deganayn oo aan caga badan ku taagnayn sabab la xiriira duulaanka joogtada ah ee Israa'iil isagoo carabka ku adkeeyay in ay tahay mid lama huraan ah in la hubiyo si buuxda in heshiiskaasi loo dhameeyo looga hortago baa layiri dhibaatooyinka musiibada bani'aadanimo ee ka taagan magaalada Gaza. isagoo Fidan ka hadlaya shirka aragtida ama shirka loo yaqaan TRT World Forum ee 2025 lagu qabanayo magaalada Istanbul kaas oo sanadkan lagu qabtay baa layiri halku dhiga ah dib u dhiska caalamiga ah ee laga soo bilaabo nidaamkii hore ilaa la yimaado xaqiiqooyinka cusub ee maanta oo Turkigu ay ku doonayaan in ay ku muujiyaan dowladaha shanta ah ee waaweyn ee adduunka golaha amnigana ka ah kuwa daa'imka ah ama jooga in aanay noqon karin kaligood inay adduunka maamulaan. inkastoo heshiisku uu wali yahay mid jilicsan sababtoo ah wasaaradaha weerarada Israa'iil ee socda haddana waxa uu fursad muhiim ah u yahay baa layiri in la joojiyo musiibada bini'aadanimo ee Gaza waana in wadajir aan u xaqiijinaa in la fuliyo si buuxda oo heshiiskaasi loo dhaqan geliyo ayuu Hakan Fidan hadalkiisa ku sii daray. dhinaca kale dalka Turkiga waxaa maanta gaaray wafuud ka socotay Xamaas halkaasi oo lagu soo dhaweeyay wada hadalna ay kula leeyihiin dowladda Turkiga iyo wasaaradda amuraha dibadda. xubnaha gaaray dalka Turkiga waxaa kamid ah Khalil al-Hayya oo kamid ah hoggaanka ugu sareeya ee magaalada Gaza u qaabilsan Xamaas kaas oo si weyn Israa'iil isku hayeen maalmihii ugu dambeeyay sidoo kalena ah madaxa wada xaajoodka heshiiska xabad joojinta lagu gaaray magaalada Sharm el-Sheikh. wasiirka amuraha dibadda ee dalka Masar Hakan Fidan ayaa sabtida maanta ah magaalada Istanbul ku qaabilay wafdi sare oo ka socotay dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Falastiiniyiinta Xamaas kuwaasi oo hogaaminayay Khalil al-Hayya madaxa Xamaas ee Gaza. sida laga soo xigtay ila diblomaasiyadeed oo ka tirsan wasaaradda amuraha dibadda ee Turkiga kulanka ayaa diiradda lagu saaray horumarka heshiiska xabad joojinta Gaza
iyo baahiyaha gargaarka bini'aadanimo ee degdega loo qabo. wasaaradda ayaa baahisay sawirro iyo muuqaallo muujinaya kulanka wasiirka iyo wafdiga iyadoo oo ay faahfaahin kale aan laga bixin muhiimadda qutada dheer ee kulankan uu leeyahay. kulanka ayaa imaanaya xilli Istanbul ay isu diyaarinayso in Isniinta soo socota ay martigeliso shir heer wasiirro ah oo ay ka qaybgalayaan dalal kala duwan oo daba socda kulankii New York oo ay la yeesheen madaxweyne Trump bishii Sebtembar ee la soo dhaafay. wasiir Fidan ayaa shalay ku dhawaaqay in shirka Istanbul uu yahay mid muhiim ah oo uu ku tilmaamay in lagu gaarayo arrimo kale oo wadajirka gobolka bariga dhexe faa'iidooyin ballaaran u leh. ugu dambeyntiina dowladda Iiraan ayaa beenisay dhambaal ay sheegtay dowladda Mareykanka iyo fariin ah in la gaarsiiyo dowladda Iiraan oo ay ka biyadiiday. laakiin Dahraan ayaa dhinaceeda ku warantay inaanu jirin wax fariin ah oo ka yimid Mareykanka oo la soo gaarsiiyay. Iiraan ayaa maanta si cad u beenisay baa la yiri wararka sheegaya in Mareykanku uu fariin cusub u soo diray Dahraan si dib loogu bilaabo wadahadallada nuclear-ka ee hakadka ku yimid bishii June kadib markii Israel iyo Mareykanku ay fuliyeen weerar military oo ka dhana dowladda Iiraan. sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah oo la hadlay wakaaladda wararka Tasniim ee dowladda Iiraan bahwadaagta la ah ayaa waxa ay sheegtay in Mareykanku uu fariin u soo maray saldanada Ammaan si ay ugu gudbiso Dahraan waa kuwa gabi ahaanba been abuur ah oo aan waxba ka jirin baa la yiri oo dowladda Iiraan aan la soo gaarsiin. warkan ayaa yimid kadib markii la sheegay in kaaliyaha wasiirka muraha dibadda Iiraan uu booqday saldanada Ammaan maalintii Khamiista taas oo keentay in qaar ka mid ah warbaahinta gobolku ay sheegeen in safarkiisa uu la xiriiray fariin dowladda Mareykanka uga timid Iiraan. Ravanji oo qoraal ku soo daabacay baraha bulshada ayaa sheegay in safarkiisa uu ahaa mid gaaban oo kaliya miro dhal ah oo wadankiisa muhiim u ahaa isaga oo sheegay in uu la kulmay wasiirka muraha dibadda Ammaan Badri al-Busaidi iyo ku-xigeenkiisa Khalifa al-Hirthi. labada dhinacna waxa uu kala hadlay buu yiri arrimaha laba geesooda iyo kuwa gobolka mana jirin buu yiri wax fariin oo ka yimid dowladda Mareykanka. inkasta oo wararkan ay beeninayaan dowladda Iiraan haddana waxaa jiray warar qaar ka mid ah warbaahintu ay baahiyeen oo qeexaya dowladaha Ruushka iyo waliba Jarmalku in ay wadaan kulan qarsoodi ah oo labada dal oo Mareykanka iyo Iiraan ay yeesheen kaasoo looga hadlayo xaaladda gobolka iyo arrimaha nuclear-ka. ikhiyaaray tabintan caawana intaas ayaan qaybtan ku ekaynaya. warar kale ayaan weli noo soo socda iyadoo xiisadaha dunidu ay isbadbedelayaan. soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan. Ramaas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya hoolka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogto ah. Ramaas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka.